runtii Toronto dunida oo idil waxa ay wada sugaysay warka farxadda leh ka soo yeeray Doha oo ah in lagu dhawaaqay xabad joojinta ee Gaza. Heshiiska intuu socday waxyaabaha la isdhaafsaday waxaa ka mid ah in heshiiska 3 marxaladood uu mari doono. Marxalad waliba waxbaa looga hadlay in 42 maalmood uu dhaqangeli doono heshiiska xabad joojinta ah, la isdhaafsan doono maxaabiista. Maxaabiista ayaa waxaa la sheegay dhanka Israa'iil in 33 maxaabiis la sii deyn doono oo isugu jiraan haween, caruur iyo rag da'doodii ay ka yar tahay 50 iyo kuwa da'doodu ay tahay 50. Marka sidoo kale waxaa la sheegay Toronto xusid mudan in maxaabiista qaarkood ay xanuunsan yihiin oo kuwa kalena runtii Israa'iil dib markaa loogu gelin doono. Dhanka Xamaasna waxaa ka mid ah in 2,000 qofood ay ku bedelan doonaan maxaabiistaasi ayaa qayb ka ah heshiiska. Xitaa meydka Yaxya Sinwar way codsadeen oo ku jireen. Sidoo kale waxaa ka mid ah dad qaarkood xabsi daa'im lagu xukumay oo runtii kacdoonka ay ka qayb qaadan karaan muhiim. Xitaa waxaa la lahaa hogaamiye runtii oo muhiim u ah Xamaas iyo reer Falastiin oo daanta galbeed laga cabsi qabay inuu bedelo Maxamuud Cabbaas ayaa ku jiray oo xabsi daa'im lagu xukumay in la soo raacsiiyo wadahadallada iminka dhexmaray. Maxaa suurtagal ah maxaabiista la soo sii dayn in la soo raaco. Marka sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha la isdhaafsaday in Israa'iil ay ka baxdo dhulka Gaza oo xitaa sidii hordhac ahaan loogu arkay xalay marin muhiim u ah Masar iyo sidoo kale Falastiin dhanka Gaza meeshan ugu muhiimsan la yiraahdo Philadelphia la yiraahdo oo isaga bixin. Sidoo kale waxaa ka mid ah oo durbadiiba ay bilaaween in Gaza 700 mitir ay u jirsadaan gudaha magaalada. Runtii waxaa xusid mudan in maalinta Axadda soo socoto si toos ah loogu dhawaaqi doono xabad joojinta ay bilaaban doonto. Marka ay istaagi doonto xabadda. dad badan waxay isweydiinayaan ka hor inta aan la gaarin Axadda Israa'iil maxay samayn doontaa, maxaa hadda socda. askarta Israa'iilse waxaa la leeyahay waxay durba bilaabeen inay alaabtooda urursadaan. maxaan ka warhaynaa iyada? dabcan markaan fiirino sirdoonka Mareykanka iyo sirdoonka Israa'iil waxay la yaaban yihiin isbedelada ka socda Gaza. Marka dibadbaxyada iyo dabaaldegga shalay bilowday Israa'iil midaas ay ka carootay oo xitaa waa tii wasiirka arrimaha dibadda xilka kasii dega Mareykanka uu yiri oo waqooyiga Gaza lagama adkaan karo. Waqooyiga Gaza in badan la garaacay, mabooyin lagu garaacayay welina way soo taageen. Xitaa caruurtii ayaa jawaab kaga dhigeen Antony Blinken wasiirka arrimaha dibadda hadalkiisa oo waa tii caruurtii lahaayeen anaga Maxamed Deefa caruurtiisa nahay iyo Yaxya Sinwar aad bay ula yaabeen oo waxay yiraahdeen sanad iyo 6 bilood meel la garaacayay oo hubka ka mamnuuca dunida lagu garaacayay haddana ay ku farxsan yihiin soo baxayaan dabaaldeg sameynayaan waxyaabaha la yaabka leh waaye. Marka Israa'iil waxyaabaha marka ay qorsheysay waxa ka mid ah saaka dadkaasi dibadbaxaya qaybo ka tirsanaya duqeynaysay meel muhiim ay duqeynaysay. waxaa laga yaabaaba maalinta Axad inta laga gaarayo oo xabad joojinta ay bilaabanayso in xasuuqyo waaweyn ka geysato gudaha Gaza. maanta maxaa dhacay? maanta sida hordhaca ah aan ku maqlaynay wararka waaweyn warbaahinada waaweyn maraan akhrinayay waxaan galay Al Jazeera sidoo kale warbaahinada kale waxaan arkayay xasuuq weyn ay ka geysanayso Israa'iil. dadkii ka badbaadayna xasuuqaasi waxay xusid mudan Toronto in dibadbaxyo xooggan ay hareeyeen dabaaldegyo hareeyeen qaybo ka tirsan marinka Gaza. marka aad baan ula yaabanaa dhinacna xasuuqa ka socda dhinacna dabaaldegyo ayaa ka socda oo farxad ah oo weliba wadamada Carabeed qayb ka mid ah oo dabaaldegaasi ka socda. sanad iyo bar waa lagu guuleysan waayey in xabad joojin laga gaaro Gaza. hadda maxaa suuro geliyay fududeeyay bay kula tahay? arrimo dhowr ayaa fududeeyay. waxaan ogsoonahay Toronto haddii dib loo milicsano isbedelka ka dhacay Syria waxaa ka dambeeyay Yaxya Sinwar duufaanul Aqsa markuu qaaday kacdoonkii weynaa ayaa xoreeya la leeyahay Gaza. Gaza waxay saameyn weyn ku leedahay wadamada Carabeed isbedelkoodii. marka Turkiga ayaa galaangal siyaasadeed ciyaaray oo daha gadaashiis wax ka maamulaya qayb ka yahay. sidoo kale Qatar ayaa arrimahan fududeeyay. waa arinta labaad runtii waxaa lagu isku dhaarsaday oo ay balan ay ku mareen wacd ay ku mareen Toronto
in intuusan imaanin madaxweynaha iminka xilka koraya ee Mareykanka Trump oo maalmo kaliya u harsan. Waxaa la yidhi intuusan xafiiska imaanin wax waliba oo bariga dhexe ka dhacayo isbedel weyn ha lagu sameeyo oo intuusan imaanin. maxay tahay sababta? Sababtu waxay tahay asaga inta badan wacd ku maray wuxuu yidhi haddii xafiiska aan la wareego wax waliba sidooda ma ahaanayaan isbedelan ku sameynaya. Marka cabsi weyn ayaa laga cabsaday oo Trump wuxuu markaa uu sheego wuu sameeyaa sidaasaa marka lagu cabsaday. Suudaan arkayna hadda la boobsiinaya in isbedel dagaalka la joojiyo oo nimanka dhibayay laga adkaado kooxaha falaagada ah. Suuriya isbedel ka dhacay. Iminka waxaan arkaynaa hadda Falastiin oo isbedelkaasi oo iminka laga dareemayo. Marka waxyaabahaas oo idil waxaa ka shaqeeyay wadamada carabta ka shaqeeyay oo Qatar kow ka ah Turkiga laba ka ah. Midda saddexaad waxaan is dhihi karaa awoodda ugu weyn ee Xamaas oo hortaagneed Israa'iil ayaa keensatay. Israa'iil marka way tanaasushay maadaama dagaalka ay ka daashay. Midaasaa markaa sabab u ahayd. heshiiskan waxaa aada u riixayaa leeyahay madaxweyne Trump. Israa'iil iyo Netanyahuna u sheegay in uu xabad joojin qaato kuna qasban yahay. Arrintaas ma jirtaa mise ma jirto? Way jirtaa arrintaasi maxaa yeelay waaqica isbedelay ayaga naftirkoodii waxay arkeen hadba xaaladda halkay u socotay arkeen bariga dhexe inuu meel u jihaystay arkeen. Sidaasay markaa ku qasbanaadeen in warkaasi uu ka soo baxo xafiiskaasi oo walaac markaa oo ku dhalinaya madaxda gumeystaha Israa'iil oo ugu horeeya Netanyahu. oo Netanyahu hore runtii wuxuu aad u rabay in Trump u soo baxo laakiin wuu u soo baxay arrintaas wuu ku farxay laakiin sida uu rabay ma noqon. Marka waa arrin runtii muslimiinta ay ku farxayaan laakiin yahuuddu walaac xooggan oo ku keeni karo asalsidii karaa. ugu dambeyntii isbedelada ku xiga heshiiskan oo la filaya muxuu yahay? Horta arrin weyn la filan karaa maxaa yeelay waxaan aragnay Afghanistan inuu Mareykanka ka dareeray aragnay oo dowladdii Afghanistan ay fashilantay oo inta badan reer galbeedka taageerayay oo kalsoonida shacabka ka baaba'day. Waxaan aragnay wadamo badan aragnay Mareykanka ka dhaqaaqay. Midana way la mid tahay oo mar haddii Gaza ay xorowdo oo isbedelna had iminka uu bilowday oo kusii socdo waxaa xusud mudan. Waxaa la filan karaa in Masar kacdoon cusub ka dhaco isbedel ka dhaco. Waxaa la filan karaa in Yemen isbedel ka dhaco. Waxaa la filan karaa in Ciraaq isbedel ka dhaco oo sunniyiinta muslimiinta gacantooda kusoo laabtaan. Sidoo kale Sacuudi ayay isbedelkan saameyn karaa maxaa yeelay waxaa laga qorayaa markaa aragtid warbaahinada waaweyn Anadolu wakaalada wararka bariga dhexe inta badan Sharqul Awsat oo Sacuudi Carabiya afkeeda ku hadasho Al Jazeera warbaahinada waaweyn waxay ku qorayaan Gaza kadib adduunyada siday u ekaan doontaa. Marka Gaza kaliya ma saameyn doonte Falastiin carab oo idil saameyn doontaa adduunka oo idil saameyn doontaa. Waa meel muhiim ah oo indhaha lagu wada lahayo. Marka kaliya Gaza saameyn kuma yeelan doonta laakiin waxa ugu horeeyo isbedel ku dhici doona waxaa weeyaan Maxamuud Cabbaas oo nidaamkiisa ka dhisan daanta galbeed halka la haysto waa la weyn doonaa oo Xamaas ayaa soo laaban doonta oo dib u qabsan doonta Gaza guud ahaan Falastiin u qabsan doonta. Waxaana fashilmi doonaa Israa'iil hore u fashilmeen ayaa fashilmi doonta. Reer galbeedkana weji kale ayuu la soo bixi doonaa oo wuxuu la heshiin doonaa nidaamkan cusub oo dhiig cusub ku jira oo wadamadooda dib u xoreysanaya. Xamaas iyo Mareykanku ma isla jaan qaadi karaan? Way adkaan doontaa laakiin waxaa dhici doonto in loo dhexeyn doono Turkiga u dhexeyn doono sida iminka dowladda Suuriya loo dhexeeyo oo kale u dhexeeya oo kale u dhexeyn doonta. Marka isbedel dhici doona waxaa sidoo kale ku sii yaraan doona bariga dhexe oo hore isku fidiyay ilaa ma Soomaaliya xitaa u soo dhawaaday aan ognahay Yemen ay soo gaareen Shiicadu Djibouti ay qorshahooda laakiin iminka way ka sii yaraanayaan. Waxaa la weyn doonaa awoodda Shiicada la weyn doonaa awoodda Sunniyiinta soo laaban doonta. Midaas reer galbeedka waa mid ay raadinayaan. waa maxay mustaqbalka Iran? Mustaqbalka Iran wuu baabi'i doonaa maxaa yeelay waxaa lagu baabi'iyay dagaaladii ugu dambeeyay bariga dhexe ka dhacay sida hadda awoodooda gacantooda midig waxay ahayd Xisbullah aan ogsoonahay halkay ku dambeyso. Sidoo kale Suuriya ayaa la wareegay. Ciraaq waa lagu socdaa. Yemenna hadda waa runtii waxaan dhihi karnaa waa xiniyaheedii Iran oo xuutiyiinta ay joogaan ayagana waa loo socdaa waa la burburinaya. Marka awoodda Iran way sii burburaysaa oo iminka waxaa dib u soo laabanaya sunniyiinta dib u soo laabanaya. Marka waxaa ka taagan sunniyiinta reer galbeedka sidee ula macaamili doonaa. Reer galbeedka ayaa sii jabi doona taa ayaa la isweydiin doonaa waan arki doonaa.
aad baa umahadsan tahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeeni falanqeynta arrimaha bariga dhexe waxay la falanqeynayay saaxiibkay saciid cabdiqaadir abukar intaan ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu